Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqeynayo dib u habeynta amniga ciidamada si xoogganna loo jabiyay cadowga nabadiidka meel fiican ay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo walaalaha AMISOM oo nala shaqeeyaba ay marinayaan inay daciifiyaan al-shabaab iyo nabadiidka sidoo kale waxa shaqo fiican ka socotaa wax badan laga qabtay arrimaha dhaqaalaha dib u habeynta dhaqaalaha iyo SNB oo World Bank IMF aanu kala shaqeyno iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo maadaama anagu dawladdan markii la dhisay aanu xoog saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda xukuumaysa maaliyadda oo kuwa ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxeexay sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa kale oo madaxweynuhu saxeexay sharciga naafada marka dhinaca dhaqaalaha dib u habeyntiisa iyo in mushaharooyinku bil kasta u soo dhacaan ciidamada iyo shaqaalaha dawladda adeeg kasta oo la qabtaana uu si sharci ah uga baxo wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha xisaabaadka ku shaqada leh systemkaasi si fiican ayuu u shaqeynayaa idinkuna markhaati baa ka tihiin ummadda Soomaaliyeedna markhaati bay ka tahay waa horumar weyn oo aan dhinaca dhaqaalaha ka sameeyno waxa kale oo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dib u habeynta dastuurka oo 15kii chapter farsamo ahaan dhameystiran yihiin sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya golaha wasiirada ansixiyay hor yaalla golaha shacabka oo ka doodaya hadda marka ay imaka furmaana la hor keeni doono si Soomaaliya 50 sanadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah hal qof iyo hal cod ku dhisan si xor ahna shacabweynaha Soomaaliyeed toos ay u soo dooranayaan wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda marka taana sharciga iyo baarlamaanka ay u hortaala inuu meel fiican mariyo lana ansixiyo waxa kale oo wax weyn aan ka qabanay arrimaha bulshada dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo gurmadka gargaarka degdega xuquuqul insaanka oo wax weyn ay Soomaaliya record fiican maanta marayso si fiican taabagal iyo dabagal loogu sameeyay gudida xuquuqul insaankuna xulisteedii ay meel wanaagsan marayso Soomaaliya waxay la bariisantay dikhawga cimilada isbedelka cimilada adduunka oo dhibaato culus ku haya deegaanka dhibaato culus ku haya xoolaha xaalufinta dhirta oo loo bedelo dhuxul lana dhoofiyo oo laga ganacsanayo isaguna dib weyn ku haya deegaankii iyo abaaraha soo noqnoqda oo ay sabab u tahay isbedelka cimilada adduunka barakicinaya dadkii markasta uu roobdo daadad fataha oo xaalufiya dalagii baabiya deegaankii iyo marka abaaruhu dhacaan oo mar labaad xoolihii iyo dadkiiba dhibaato weyn u haysta Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu nugul isbedelka cimilada adduunka waxaan isleeyahay shirkani wax badan ayaa uu kaga hadli doonaa aynuna ka qaban doonaa sideebaan fikir iyo ra'yi isugu biirinaa in adkaysiga iyo dib u soo nooleynta deegaanka Soomaaliya oo 30 sanadood u dambeeyay dhibaato baan lagu hayay dib looga shaqeeyo dhiraynta bilicda deegaanka wanaajinta deegaanka la dagaalanka waxa xaalufiya ama badda ha noqoto ama dhulka ha noqoto deegaanka intaasiba waxay tahay waxyaabaha aynu isleenahay waa kaga hadli doontaan shirkeenan maanta iyo berri socon doona ajanda dheer baynu leenahay maanta waa maalinta hawlaha ugu waaweyn dhacayaan waxaan isleeyahay waqtiga si fiican baydun uga faa'iideysan doontaan qof walbana waxa uu ku koobnaan doonaa mawduuca wixii aan laga tageena in uu ka hadlo arinta kale ee aan doonayo inaan taabto waxa weeye iskaashiga labada dhinac oo afka qalaadna aynu ku nidhaa partnership principles inaynu kaga hadalno iyo maaf oo isaguna ah maxaa isla xisaabtanka labada dhinac mid walba u yaal laga rabaa dawladda Soomaaliya 15 bilood ilaa 2020 December maxaa noo qorshaysan ay tahay inaanu qabanno dhameystirnana beesha caalamku 15 bilood u haray mandate-ka xukuumaddan dawladdan maxay wax nagala qaban karaan iyo aakhirkii inaynu ka heshiino war murtiyeedka ka soo baxaya fadhigeena maanta iyo berrito waa mahadsantihiin shirku si rasmi ah uu inoogu furan yahay